بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الكسور وهذا ورك قلبنا كوارا channel. قضبنا تداون دونتان وحكمدا. وحوينا مامور كهير شباب يودي وقامنا يوقع المجالات البلد وينه. حفيز كرئيس الوزراء غير وكجواب آداب بلوك أو قتل هيران. السنة كتير سنة أقل كسر أو ما أنت لجور استاجي كقبل كأسك وزيرك وعبرشة جبلان. بطلان أو شاعسي كيسس بدن أو كورونا فيروس أي مسؤولين لجهلي على الشباب أو شكل ورر لو قاضي حرده حلنا المجالنا مقدشو وحد ذوق لقطة عن دونتان مدحوين أهورو كياتا أو فريق قلنا أدريدات كرر إسرائيل مدحويني يوري أمريكا كابراك حسين أوباما أو ترامب أقول لي مارينتا كوفيد 19 يطرد ضدك وصورتي عذرك كوفيد-19 ee dunida oo kor u dhaafay 4 milyan oo ruux qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba goordhow mar kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay aqoonta naga daawanaysa channelka Kwara waxaad ku soo dhawaataan warkii oo intaasi ka faahfaahsan waa maalinimo ahada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 10ka bisha May 2020 aynu ku horeyno sida toordhaca qodobada warkaba aad ku daawateen madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wafdiga madaxweyne Waare oo qayb ka yihiin xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabelle maalmahan ku sugnaa magaalada Jowhar waxa garoonka diyaaradaha Beledweyne ee Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Ali Jeyte Cusmaan xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle iyo saraakiisha ciidamada madaxweyne Waare iyo xubnaha labada gole ee la socda ayaa la filayaa in kormeer ay ku tagaan goobaha guddiga gurmadka iyo maamulka degmada ay ka wadaan xiritaanka si looga hortago fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ka jirta xaalad cabsi ah oo ku aadan fatahaad xoogan uu sameeyo webiga Shabeelle waxaana dadka qaarkood ay bilaabeen in ay barakacaan war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Khayre ayaa lagu sheegay in wasaaradda maaliyadda uu faray fududeynta qarashaadka ku baxaya dadaalada looga hortagayo fatahaadda Beledweyne ee wadajirka ay u wadaan shacabka iyo dawladda Soomaaliya si looga baajiyo fatahaad ku soo rogmato magaaladaasi ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo warbixin faahfaahsan ka dhageystay guddi hoosaadka ka hortagga fatahaadaha ayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in xooga la isugu geeyo ka hortagga fatahaadaha aan la sugin waxyeeladooda dhanka kalena senator ka tirsan aqalka sare ayaa maanta waxa hor istaag lagu sameeyay inuu ka baxo garoonka Aadan Cadde waxa maanta muddo kooban garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho lagu xayiray diyaarad rakaab ah oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ila xog ogaal ah ayaa Kwara Channel waxay u sheegeen in diyaaradda ay qaadi lahayd wafdi horay u sii raaci lahaa meydka wasiirkii waxbarashada maamulka Jubbaland ee Sheekh Maxamed xubnaha raaci lahaa diyaaradda ee maanta la xayiray ayaa waxa kamid ah senator Cabdullaahi Farataag oo kamid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadiisu ay tahay Jubbaland iyo afayeenkii hore ee maamulka Jubbaland Ahmed Carab wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in senator Cabdullaahi Farataag uu ka haray diyaaradda kadib muran ka dhashay arintaasi iyadoo markii dambe ay diyaaradda qaaday afayeenkii hore ee maamulka Jubbaland Ahmed Carab ma jiraan wali wax war ah oo ka soo baxay hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya oo ku aadan arintan maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde xukuumadan uu talada u hayo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay cadaadis xoog leh mas'uuliyiinta dhaliilsan ku saarta in ay ku hakiso garoonka diyaaradaha iyadoo horay Aadan Cadde loogu hakiyay wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiyada qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Ahmed guddiga arrimaha coronavirus ee maamulka Puntland ayaa shaaciyay kiisas hor leh oo cudurka koronaha kuwaasoo laga diiwaan geliyay gudaha deegaanada Puntland tirada kiisaska laga diiwaan geliyay Puntland ayaa gaaraysa 17 halka dhimashada uu sababay cudurkan loo diiwaan geliyay hal qof sida lagu sheegay warbixinta guddiga
kiisaskan ayaa laga kala diiwaan geliyay gobolada Bari Mudug Nugaal ee Puntland mana jirto cid ka soo bogsatay xanuunka oo lagu shaaciyay warbixintan guddiga ka hortagga xanuunka COVID-19 ee deegaanada Puntland ayaa tirada guud ee cudurkan uu ka baaray saacadihii u dambeeyay ku sheegay 24 qof balse waxaa laga helay 17 qofood kuwaasoo 15 ka mid ah ay yihiin rag halka labada kalena ay dumar yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerar madaafiic loo adeegsaday oo xalay fiidkii lagu qaaday xarunta xalane ee magaalada Muqdisho dadka deegaanka ah ayaa Kwara Channel waxay u sheegeen in ay maqleen jugta dhowr gantaal oo ku dhacay gudaha iyo daafaha xarunta xalane inkastoo aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan ururka al-shabaab oo war ka soo saaray weerarkaasi ayaa sheegatay mas'uuliyadiisa waxayna war lagu baahiyay warbaahinta taageerta ku sheegeen in ilaa 7 gantaal oo ay u adeegsadeen qoriga hoobiyaha ah ay la dhaceen xarunta xalana isla markaana uu qasaaro jiro balse faahfaahin kama sii bixin qasaarahaasi al-shabaab ayaa marar badan weeraro ay u geysteen weeraro ay u adeegsadeen qoriga hoobiyaha waxa ay ku qaadeen xerada xalane oo fadhi u ah hay'adaha qaramada midoobay iyo safaarada dhowr dal xaruntaasi sugidda ammaankeeda waxa gacanta ku haya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM balse waxa xaruntaasi sugidda amnigeeda waxa gacanta ku haya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM balse waxay u taaglaayeen weerarada uga imaanaya dhanka iyo xarakada al-shabaab ee loo adeegsado qoriga loo yaqaan hoobiyaha toddobaadyo ka hor dhowr hoobiye oo al-shabaab ay ku tuureen xarunta xalane ayaa waxa ka dhashay qasaare badan oo soo gaaray dad rayid ah iyo xoolo u badnaa geel wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dalka Kenya oo booqday xaafado ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ayaa kulamo la qaatay hoggaanka sare ee xaafadaasi mas'uuliyiinta oo xaafadaasi kula kulmay wasiirku waxa kamid ah xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto deegaanka Kamakuji oo ay ka tirsan tahay xaafada Islii ee magaalada Nairobi ujeedada socdaalka wasiirka ayaa lagu sheegay inay tahay fariin uu ka sido madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta taasoo ku saabsan in bandowga Islii lagu soo rogay uusan gaar u ahayn Soomaalida ku nool magaalada Islii wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya ayaa ku celceliyay in bandowgaasi uusan ahayn mid lagu beegsanayo Soomaalida iyo muslimiinta kale balse uu qayb ka yahay dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19 Kenya waxay ka mid tahay dalalka geeska Afrika ee uu sida aadka ah u saameeyay cudurka coronavirus xaafada Islii iyo magaalada Mombasa ayaa maalmihii la soo dhaafay laga diiwaan geliyay kiisas aad u badan waxayna ka midaysan yihiin bandowga ay soo rogtay dawladda Kenya xildhibaan Yuusuf Xasan oo kulanka ay la yeesheen wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadii shirkaasi looga hadlay kuwoodii la isku afgartay wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay ku qancaan soo jeedinta dawladda Kenya ee ah bandowga lagu soo rogay xaafada Islii oo ah xaafad ay ku badan yihiin Soomaali daawadayaal Kwara Channel waa naga inta warka waxaa soo saaray Saadaq Cali Ismaan waxaa sida tooska idinla socodsiinayay maad Kwara waxa farsameynayay calayka tan intaan dib ugu kulmi doono warkan warka xiga nabadiino